waxaan ku wadaa unit 4 conversations aad u qiimo badan. Possessive apostrophe s waa shay tusaaleeyo lahaansho maanta 10 yar oo conversation ay ku jirto ama jumlado ay ku jirto ayaan soo diyaariyay grammarkeeda oo dhameystiran waxa ku arki doontaa video ka horeeyay ee grammarka ciwaanku u yahay kan waa conversations ka ay ku dhex jiraan. Okay, number 1 waxaan leenahay possessive apostrophe s ta waxa la raacsiyaa qofka magaciisa ka bacdi shayga oo lahaay ayaa lagu xijiyaa. Okay, Jenny is Aniya's wife. Jenny waa Ian xaaskiisa. 2 Ian is Jenny's husband. Ian waa Jenny ninkeeda waayahay. 3 Becky is Jenny and Ian's daughter. Becky waa Jenny iyo Ian's daughter. Gabadhii Ian iyo Jenny waaye. 4 Michael is Jenny and Ian's son. Jenny iyo Ian wiilkooda. 5 Ian is Becky's father. 6 Jenny is Michael's mother. Jenny is Michael's mother. Jenny waa Michael hooyadiis. 7 Becky is Michael's sister. waayahay Becky waa Michael walaashiis. Michael is Becky's brother. Michael waa Becky. Jenny and Ian are Michael and Becky's parents. Jenny Ian waa Michael iyo Becky waalidkood. Marka 2 iyo 3 qof haday imaadaan qofka u dambeeya la raacsiyaa apostrophe s ta. waayahay 10 kan tobanaad waxaan leenahay Michael and Ian's children. Michael iyo Becky waa Ian iyo Jenny ciyaalkoodii waaye. Possessive adjective. Possessive adjective ka waa shay tilmaama pronoun tilmaama qofka wuxuu u leeyahay. Okay, asaga grammar sidaas oo kale video grammarka ayaan soo raaciyay. videogaas akhriso fadlan daawo si fiican ayaad fahmi doontaa. Number 1 waxaan qaadanaynaa yo iyo my. Okay, what's your name? Magaca. My name is Annie. Magacaygu waa Annie. 2 laba qof oo kale. What are your names? Magacyadiina waa maxay? B Our names are Emma and Vince. Okay, magacyadeena waa Emma iyo Vince. 3 kan saddexaad Powell and Andrea are students. Powell iyo Andrea waa arday. waxaan leenahay iskuulkooda Paris ayuu ku yaalaa. Their school is in Paris. Iskuulkooda Paris ayuu ku yaalaa. Okay, waxaan noo xigo qaybtan yarta ah highlight saaran yahay. My sister's married. walaashay waa ay guursatay. What's her husband's name? ninkeeda magaciisa. 5 A My brother's office is in New York. walaalkay xafiiskiisa New York ayuu ku yaalaa. Okay, B Really? xaqiiq ba. What is his job? shaqadiisu waa maxay? wixiisa. We are in English class. We are in our English class. waxaynu ku jirnaa fasalkeena Englishka. Okay. Way 7. Okay. Mom and Dad, hooyo iyo aabe, are in Rome. Roma ayay joogaan. What is the name of their hotel? Hotelkooda magaciisa waa maxay? halkaan waxaan ku qaadanaynaa half iyo half. Especially waxaan qaadanaynaa reading yar oo aad u qurux badan oo laga diyaariyay xidig banooni oo lagu magacaabo David Beckham iyo qoyskiisa. The Beckhams, reer Beckham are very famous family. waa qoys aad caan u ah. The Beckhams, reer Beckham
a very famous family وقويس آد عانوا David Beckham is a world famous footballer وقف بنونيغا عيارة الدنيا عنك and his wife حاسكي سنة ساسو كلا عام فيكتوريا لغو مقعابو حاسو حيلادها fashion business كنعسي أو فاشيون أيلادها they have 4 children أفر عرورة إليهن 3 سنة سيدحويل Brooklyn Romeo and Cruz إليهن and a daughter iyo gabar ay leeyihiin Haba ayaa lagu magacaabaa both labadaba football and fashion banooniga iyo waxyaabaha fashionka important muhiim ayay u yihiin for the family qoyska all the children dhammaan caruurta love football banooniga ay jecel yihiin even little Haba xataa gabadha yar ay Haba waayahay Victoria's sister Victoria walaashid Louise lagu magacaabo haas waxay leedahay a fashion boutique okay fashion boutique waxa la yiraahdaa dharka gaagaaban dukaan fashion oo dharka gaagaaban lagu iibiyo ay leedahay and Brooklyn wiilka Brooklyn ay hawr u tahana works there halkaas ayuu ka shaqeeyaa on Saturdays sabdiyada ayuu ka shaqeeyaa Romeo is a fashion model Romeo waa fashion model Romeo is a fashion model Romeo waa fashion model for Burberry shirkadda Burberry ayuu u yahay they are a rich family qoys qani ah weeye iyagu they have 4 houses afar guri ay leeyihiin in London guri ay ku leeyihiin California guri ay ku leeyihiin Dubai guri ay ku leeyihiin and south of France koonfurta France mid ay ku leeyihiin but they are laakiin waxa ay yihiin normal family too sidoo kale qoys iska caadi ah way they like family time at home waxay jecel yihiin waqtiga qoys qaata ee xaafad ku qaataan ay jecel yihiin okay the parents waalidku work hard si adag ay u shaqeeyaa and they have a charity waxay leeyihiin charity sadaqo ay leeyihiin barnaamij sadaqo ay leeyihiin for a young people loogu talagalay dadka da'da yar the Victoria and the David Beckham Charitable Trust ayaa la yiraahdaa way waxaan leenahay and David works for UNICEF David wuxuu u shaqeeyaa UNICEF ayuu u shaqeeyaa so halkaas ayaan conversationka uga bixinaa way my Ebal Melissa saaxiibaday ariga Ebal waa email friend saaxiiban email saaxiib ku noqonay ayaa loola jeedaa my Ebal Melissa saaxiibaday Melissa okay my Ebal's name is Melissa saaxiibadayda oo emailka aan saaxiib ku nahay waxa la yiraahdaa Melissa ayaa la yiraahdaa Lisa for short Lisa waa loo soo gaabiyaa and she's from Turkey Turkiga ayay ka soo jeedaa she is very funny waa gabar sheekaala ah shactira badan and I like her emails waana jecelahay emailadiida they are always very interesting markasta aad ay u xiiso badan yihiin Lisa is 22 Lisa 22 sano ay jirtaa and she is a receptionist waana gabar soo dhaweysa oo qayb ka shaqeysa hotel ay dadka ay ku qaabishay ku soo dhaweysa shaqadeeda reception ada hotel Amira ay ka shaqeysaa okay in Istanbul ku yaala she loves waxay jeceshahay qajaab shaqadeeda and she likes meeting interesting people waxay jeceshahay inay la kulanto dad xiiso leh inay la kulanto ay jeceshahay from all over the world dunida idinka soo jeeda she has a great boyfriend oo macnaha saaxiib u gooni ah ayay leedahay from Cyprus ka soo jeeda way waxaan leenahay boyfriend waxa adeegsada oo kaliya gaalada muslimka boyfriend ma lahan mamnuuc ayuu ka yahay way he has a job shaqo ayuu ku haystaa
asigana at hotel too sidoo kale hotelka ayuu ka shaqeeyaa waayahay his name is Mohammed magaciisa Mohammed waaye and he is a waiter waana kabalyeeri in the hotel barka ayuu ka shaqeeyaa ama qaybta cabitaanka ee hotelka ayuu ka shaqeeyaa Lisa is from Adana in the south of Turkey Lisa waxay ka soo jeedaa koonfurta magaalada Adana oo ku taala koonfurta Turkiga okay her parents have waalidku wuxuu leeyahay house guri ayuu leeyahay near u dhow the city center bartamaha magaalada her father is Turkish waa qof Turki ah and he works wuxuu ka shaqeeyaa at one of Adana's airports Adana ee laboradeeda mid kamid ah uu ka shaqeeyaa her mother hooyadeed is English waa qof English ah waayahay and she is a businesswoman waana gabar ganacsata ah waayahay she has two brothers gabadha waxay leedahay laba walaalo their names are Arif and Basir waa Arif iyo Basir Arif is 17 Arif 17 sano ayuu jiraa and Basir is 14 Basirna 14 ayuu jiraa they are both still at school labadooda weli school ayay dhigtaan Lisa has a lot of interests Lisa waxyaabo badan oo xiisaysa ay leedahay but her favorite hobbygeeda ay jeceshahay is dancing oo qofka ciyaarka she loves waxay jeceshahay traditional Turkish dancing qofka ciyaarka dhaqanka ee Turkiga ay jeceshahay and dances when qofka ciyaarta in a lot of competitions tartana fara badan ay qofka ciyaarta she also likes tennis sidoo kale tenniska ay jeceshahay she and her brother Arif ayda iyo walaadkeeda Arif are big fans waa taageerayaal waaweyn of Marcel Ilhan ay aad u taageeraan I learn a lot about Turkey wax fara badan ayaan ka bartaa Turkiga from Lisa saaxiibada Lisa anoo ka tixraacaya and it is really interesting dhabaanti xiisa ay leedahay we have fun emailing waxaan qaadanaa on leenahay email aan ku madadaalano and texting iyo fariin inaynu soo qorno waxaan rajeynayaa casharada qaybta oo colorka ah gaduudka ah waxaan ugu talagalay grammarka aan ku bixiyay videogi hore waa طبعا in base u yahay so haduu ku soo gaaro videogan fadlan waxa u gudbisaa saaxiibadaada like saar hadii aad channel ku cusub tahana aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaad ka mid tahay dadka ku soo biiray channelkan wuxuu noqon doonaa insha Allah rugta grammarka iyo conversationka ku rajeynayaa inaad ila joogi doonto ila dhameysan doonto video thank you very much that's the end